December 2020 maanta waxa magaalada Muqdisho ku kulmay guddiga waxa qabsoomay shirkii guddiga amniga doorashooyinka qaran oo ah shirkii ugu horeeyay oo ay yeeshaan xubnaha guddiga amniga doorashooyinka qaran waxa ka garmeeyay taagan taliyayaasha iyo taliye-xigeenada booliiska dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka heer dowlad goboleed oo iyaga xubna ka ah guddiga amniga doorashooyinka heer qaran shirkan maanta noo furmay magaalada Muqdisho wuxuu ku socon doonaa 3 bari labada cisho soo socotay maanta wuxuu ka bilowdaa 13 bisha ilaa 15 bisha oo looga adeegsanayo amniga diyaargarowga amniga doorashooyinka qaran 2021 taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo ah gudoomiyaha guddiga amniga doorashooyinka qaran assessment iyo qiimeyn uu ku soo sameeyay dowladaha qaarkood dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka waxaan ugu soo koorgalnay sida uu yahay diyaargarowga iyo sugista amniga doorashooyinka qaran ee 2021 shirkan maanta ayuu noo furmay wuxuuna noo xirmi doonaa 15 bisha haddii Ilaahay yiraahdo halkaas oo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed maamulka gobolka Banaadir ciidamada AMISOM police iyo military dowladaha saaxiibada nahay beesha caalamka iyo institutionada dawliga oo ka mid yahay guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban heer federaal oo xubnahooda dhammaantood guddiga ay goobjoog ka ahaayeen waxaa la isdhaafsaday doodo iyo baristayshino qorshaha amniga doorashooyinka insha Allah waxaan rajaynaynaa in natiijo wanaagsan ay ka soo baxdo oo noo diyaargarowga amniga doorashooyinka sida ugu qurux badnaan loo diyaargaroobo loona qabto si doorashada sanadkan ugu soo foodla ay u dhacdo diyaargarowga ugu wanaagsan oo maasantiin. Assalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh.